maalintii afraad ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu shaqo xoogan ka wadaa isgooska Soobe oo ah goobta ay musiibada qaran ka dhacday 14 Oktoobar halkaas oo ay kooxda Al-Shabaab ku xasuuqday boqolaal ruux oo aan waxba galabsan taas oo noqotay mid gilgishay qulubta ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa caalamka. arxan darada ay argagixisada kula kacday dadka masaakiinta ah oo ku mashquulsanaa xilligaasi howl maalmoodkooda. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhalinyaro tiro badan oo iskooda isku abaabushay kuwaas oo la baxay gurmad qaran ayaa waxa uu gudoomiyaha kula kulmay isgooska Soobe halkaas oo ay ka socotay shaqo nadiifin ah isla markaana ay barbar socotay baadi goob loogu jiray dadka la tuhmayay inay ku hoos jiraan dhismooyinka burburay. wadulkeena wadaqsawka okadiidiya waxaan dhacaya edhag xumada haddaan dhowranno ubadkeenna dhaxli doone. duqa magaalada Muqdisho ayaa dhalinyarada kula dardaarmay in si isku duubni ah uga qayb qaataan nabadda iyo horumarka caasimadooda. maalinta Arbacada oo biri ah galabtii waxa la sameyn doonaa tacsi oo la isugu soo bixi doono dhammaan intii wax ku noqotay dhibkii meeshan ka dhacay. waan hubaa dhammaan qof walba Soomaaliya qof walba Muslim qof walba bini aadan ah ee adduunyada ku nool inuu xanuunkan gaaray. waa aragteen magaalooyinka qaarkood inay midnimada ama xalay ee ka qayb qaadanayeen inay baroor diiqaan oo ay nala tiiraanyoodaan sida magaalada oo Paris, Istanbul iyo sidoo kale magaalada Toronto. dhowr magaalood ayaa sidoo kale sameeyeen. magaalo walba oo sameeyso u mahad celinayna Muqdisho maqaamkii ay lahayd intii ay istaahishay dadkeedina waa ka heshay dadka adduunyadana waa ka heshay. annaga naga rabaa inaan ilaashano oo aan hore u sii wadno. saadarteed maadaama biri la isku soo wada baxayo waxaan idin ka codsanaa dhalinyaroy in la isku soo wada baxo la wada imaado magaalada socod ku marno hal meel kaliya aysan noqon oo aan amniga u heelino oo aan tusno inaysan mar dambe Muqdisho wax ka dhici karin. annagana mas'uuliyadeeda iska leh. waxaan ku celinaa kelmadeedii ahayd dhalinyaroy xamar aan ka xureyna xabaasha badatay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhanka kale sheegay in maalinta Brita 3 galabnimo magaalada Muqdisho lagu qaban doono isku soo bax balaaran oo lagu baroor diiqayo shacabkii la xasuuqay loona baahan yahay in cid kasta ay ka soo qayb galaan dibadbaxaasi. shakhsiyan waxaa maanta aniga farxad ii ah dhalinyaradii oo aan ku tashanaynay oo meel kasta joogeen gaar ahaan Muqdisho joogeen in uusan qofna ka harin ay qof walba soo baxay. waxaana tusaale noogu filan inta maalin la soo dhaafay shaqada culus ay laga hayay dhowrka qaybood ee kala duwan ee magaalada Muqdisho ha noqoto xarunta ee gurmadka degdega ilaa meeshan hadda aan taaganahay oo shaqada ay ka socoto. qof ma jiro ilaa inta wax qabata waa dhalinyaro. dhalinyarada maanta waa hantida aan haysanno oo aan wax walba ku qaban karno. arrintan waxaa la rabaa inay noo raacdo inaan u heelino amniga. waxaan nagu dhacay wax xanuun badan oo qof bini aadan maskaxdiisa uusan qaadan karin nagu dhacay. qof kasta sidee wax u dhaceen waxaan qiyaasi karaa haddii uu baseexdo lama seexdo waan hubaa in maskaxdiisa aysan ka go'een masiibada meeshan ka dhacday. midnimo iyo inaan amniga u heelina uga jawaabi karnaa. qaar ka mid ah dhalinyaradii ka qayb galaysay howlahaasi nadaafadeed ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta qaranka. 9 saac duurnimo galabnimo in shacab Soomaaliyeed ee ganacsanaya meel fadhiya shaahay in loo imaado la xasuuq waxa u dul qaadan karna ma ahan waxa yeeleena ma ahan waxa u soo baxnay inaan dareenkeena wajino inaan ka xunnahay in dhalinyarada Soomaaliyeed in la xasuuq inaan ka xunnahay u soo baxnay waxa u dul qaadan karna ma ahan wax dhalinyarada Soomaaliyeed in la dabargoolo u talagalo waay wax daamidaan ku midooweyn oo aan gacmaha isqabsan weynana ma ahan wax mid wiligeena aan ku midooweyn oo aan isugu imaaneen. wallahi ficilkii meeshan ka dhacay aadan ugu xumahay wuxuu ahay musiibo qaran waxay ahayd wax oo ummadda Soomaaliyeed la doonayay in lagu cirib tiro hooyooyin badan oo shaqaynaya iyo dad nolol maalmeed u soo doontay in la xasuuqo oo waliba lagu laayo waliba si arxan darro ah aadan ugu xumahay sidaad u jeedidna waa kuwana dhalinyaradii oo dhan maanta way ka soo dhiidiyeen. Nuur Saciid Haliil, Raadiyo TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.